jacaylka uu weheliyo calafka ayaa marar badan isku keena lamaanayaal uusan qorshuhu ugu jirin inay nolosha ku midoobaan. James iyo Chloe waa lamaane aqal galay sanadkii 2016. Gurkooda wuxuu ahaa mid hadalhayn badan ka dhex abuuray gudaha UK. Lamaanahan ayaa aad ugu kala duwan dhanka dhirirka. James oo ah 33 jir ayaa dhirirkiisu dhan yahay 109.3 sentimitir, halka Chloe oo 27 jir ah dhirirkeedu uu leeyahay 166.1 sentimitir. waxa uu dhaxeeya farqi dhan 56.8 sentimitir. Chloe Lastad waa macallimad waxay sheegtay inay aad uga warwarsanayd markii ay sheeko wadaag ahaayeen falcelinta dadweynaha iyo saaxiibadeed uga iman karay. waxaan rajaynayaa in sheekadeenu wax badan ka bedeli doonto dadka kale oo ayna xasuusin doonto dulucda ah buugga marnaha ku xugminin garbadkiisa. sidaa waxaa tiri Mrs. Chloe. waxay intaa ku dartay inay soo jiidan jireen oo ay xiisayn jirtay ragga dhaadheer, balse wax walba ay isbedeleen markii ay la kulantay James oo ah jilaa iyo soo jeediye TV. labadii bishan ee June 2021 James iyo Chloe waxay kala duwanaanta dhirirkooda ku galeen diiwaanka dunida ee lagu keydiyo dhacdooyinka caalamka kuwooda naadirka ah ee Guinness World Record. sheekada lamanahan ayaa ka soo bilaabanaysa sanadkii 2012 markaas oo ay ku kulmeen baar ku yaala Cardiff. wadajirkoodana aad ay ugu faraxsan yihiin. 5 sano kadib waa aabe iyo hooyo haysta gabar 2 sano jir ah.